sheegay in dayaxdal nolosha arooskii ayuuna qurxin oo ku dhex ooyay ama dhankaas isuuliga oo aad intu tagay oo in aad u farabadan ama laga dareemay wajigiisii waqtiyadii uu heesayay ama isaga ahaan uu showgaas oo markaas ama arooskaas uu ka heesayay in wajigiisa isbedelay ama murugo aad u farabadan ay ka soo muuqatay dhanka wajigiisa bulshada ee hore ugu xaman jirtay in uu aad u jecel yahay gabadhan ama xariyo aad u farabadan uu la sameeyay laakiin ay u suurtagal weysay in uu gacanta ku dhigo ama uu noqon weysay sida uu rabay marka bulshada sida ay markaas ay showga joogtay ama arooskaas joogtay waxay aad ay la murugoodeen ama ay aad ugu xumaadeen qaabkii uu si ahaan ugu falceliyay ama qaabkii si ahaan murugtaas waqtigaas ay ugu muuqatay isagoo iyadana ay faraxsan tahay oo markaas iyadana ay tahay arooskeeda ama ay markaas ay dareemayso farxad aad u badan aan la soo koobi karin waqtigaas mid fanaaniinta dhankaas ay arooskaas kala kicinayay ama arooskaas sida looga baahnaa u kala kiciyay ama fanaaniinta ugu saameynta badan dhankaas ay magaalada Muqdisho hadii aroos la dhaho ama just ahaan qof aan ha noqdo ama qof aan ahayn hadii uu aroos dhiganayo ama uu fanaan u wacanayo waa la iska wada ogyahay fanaanku uu wacanayo waa fanaaniinta dayaxdal nolosha iyo qadarkeeyo in ay midkood ay u wacanayaan siiba fanaan dayaxdal nolosha ee aad u wada jecel yihiin dhalinta reer Muqdisho ama dhanka heesiisa ay aad u xiiseeyaan waqti xaadirkaasna isaga ahaan ku sugan wadanka marka isagoo uu showgiis ama arooskaas u kala kicinay gabadhan ayaa dadku waxay aad ula yaabeen murugta ka muuqatay isaga aan uu heesayo ama ereyad uu ku heesayo in uu aad ugu murugaysan yahay arooskeeda ama uu ku faraxsaneen in laga dulqaado ama dulqaad ahaan lagu sameeyo isaga ahaan laakiin inta waxaan dhigi karnaa waa wax dunida ka wada dhaca ama qof walba ee soo maraxariyo aad u farabadan uu dareemi karo in ay qofka laga dulqaado ama qofkan uu noqon waayo calafkaaga waa wax mar walba soo noqda ama wax mar walba la arko waxaan dhigi karnaa fanaankan waxay u tahay ama habeenkaas waxay u ahayd habeen lama ilaabaan ama shakhsi ahaantiisa ama isaga ahaantiisa oo aan hilmaami karin waana wax just ahaan isaga noloshiisa ama waxyaabo aad u farabadan uu ka bartay sababtoo mar walba ay wax la kulanto ama mar walba just aad wax kugu cusub aad aragto waxaad ka baranaysaa cashir ama cashir aan weliga aan hilmaami doonin marka waxaan dhigi karnaa fanaankan wuxuu ka bartay cashiro aan la hilmaami karin ama taariikhyo aan aad loo hilmaami karin ama waqtiga habeenkaas aan la hilmaami karin badan ahaana waxay u ahayd habeen aad u qurux badan ama habeenada kale uga duwan shakhsi ahaanteeda ama nolol ahaanteeda waxay u ahayd habeen aad u qurux badan habeen in loogu bishaareeyay ama sida jannada oo kala oo aad ay u faraxsan tahay ama farxadeeda aan la soo koobi karin ay u ahayd isaga ahaana waxay u ahayd habeen aad u